يقرالي صاحبت علي من لا إلا وذاك لكن مالك استواي لي صفراني مالك استواي لي فراني وامرك لبعضه لي فراي نكوريتن وي حمي وي فري كنوا كنا ترتان علي محاوي نلشيده أنا قف معاني قفكي كان قف معاني nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban waad yaabaysaa muuqaalkan soo socda haddii aad daawato waxaan rabaa marka hore inaan si sharaf leh idinka codsado fadlan videoga like-ta noo saara haddaadan hore subscribe noo ahayna nagu soo biir oo subscribe-ta noo saara gambaleelkana furo waa saarasahan oo idin leh soo dhawaada gabadhan aad arkaysaan waa fanaanad waxaad arkaysaan inay ilmeynayso waxaan rabaa inaan idin dhageysiiyo sababta ka oohinaysa iyo sababta ay leedahay waa la ii furay bal ila dhageysta wax yar run ahaantii ma ogi waxa dhihi kartiin idinka leewaay waxa rabtiin waa dhihi kartiin laakiin fadlan waxa idin ka codsanaa comment qaldanina iyo soo qornina ana murugoono ila igu sii dartiin marabi waxaa dhacay laba habeen ka hor waxaa ku dhahay ninkayga arinta aniga ninkayga waaye waxaa ku dhahay waa baxayaa waa dhoofayaa waxaa u socdaa ingiriiska soo ogtiin ani Holland aad deganahay qofkii ogyahay qof kalena hadda ha ogaado wuxuu ku dhahay hadeertaana imaaday see u bixi kartaa ma bixaysid waxaa ku dhahay waa baxayaa familkayga u socdaa mana iga celin kartid markaa ka imaadana waa baxayaa Turkiya u socdaa adoo istagaalnay bis wuxuu dhahay hadaa baxdid anina already markaas tigidka waan goostay hadaa baxdid waa iga furan tahay anoo rabin inuu i furo laba talaaqo igu furay soo igana lahaaba tishoogina waqtiga صاحبت علي من لا إلا وذاك لكن مالك استواي لي صفراني مالك استواي لي فراني وامرك لبعضه لي فراي نكوريتن وي حمي وي فري كنوا كنا ترتان علي محاوي نلشيده أنا قف معاني قفكي كان قف معاني يقرالي عامرين أنا نلشيده إذا وركينا وين هذا لكن نقبلها لكن قف حلمي هذا أنا جعلان اللي يفرو maalin kasta reason yar oo waxba ahayn wanyaaq leegu furaaya taas xaq ilaahay miya moogi meesha ku nasan doona ani noloshayda waa iska xumaatay wax kasta oo dhacan waa adduunyo waa iska dhacaan laakiin ma filayn runtii gabadhan fanaanada Faadima Hayan waxay tiri waxaan ninkayga ku kala tagnay waxaan ku iri waxaan aadayaa fasax ingiriiska ayaan tagayaa dadkayga ayaan soo fiirinayaa kadib markii aan ka imaadana waxaan u socdaa Turkiga oo tigidkaygu waa ii go'an yahay walaalay haddii aad rabto go'aankaaga in aad markasta kaligaa qaadato miyaysan habboonayn in ay kelinimadaadu kuu fiican tahay oo aysan wanaagsanayn in aad markaasi partner leedahay oo uu ninku qabo sababta aad u ooyaysid maanta waa wax aanan fahmi karin haddii aysan arrintaasi sida Soomaalidu ay samayso aysan baranki ahayn oo aadan oran doonin beritoole arrintu baranki bay ahayd waaba sida isaga muuqata waxa aad u la yaab badan guurka macnihiisa ayaa waxa uu yahay in labada qof ee nolosha wadaaga ay wax kasta oo go'aan ah oo ay ku dhaqaaqayaan in ay wada gaari karaan ama is ogeysiiyaan si qofba qofka kale uga warhayo laakiin adigu maanta haddii
uu isagu arrinkaasoo kale uu gaari lahaa adiguba waxaad odhan lahayd walaal warqadayda iska kaysii anigu sidaas ma doonayo noloshaasi soomaalida waxaa moodaa baryahan dambe in ay ka dhigato maxkamadda youtube-ka iyagoo markaasi gar iyo gardarraba filaaya in ay saxsan yihiin haddii arrinkani uusan ahayn arrin baranki ah oo aad rabtid in aad bulshada ku maaweeliso ay runkaa tahay daba haddii aad safrayso sida aad lagajkaaga u qaadanayso ayaa waxa wanaagsan qofka aad nolosha la wadaagtid in aad gacanta u qabsatid meel kastana aad wada aadaan unless ay daruufo markaasi jiraan haddaba walaalay oohintan anigu oohin aan fahmay ma ahan balse waxaan rajaynayaa sida aad sheegtay in bulshadu aysan kuu qori doonin commenti khaldan haddii ay sidan dhabkaa tahay oo oohintan aad ooyeysid ay runkaa tahay waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu qalbigaaga kuu qaboojiyo markaaga dambana go'aanadaada dambana ay noqdaan go'aano qofka nolosha aad la wadaagi doonto aad la qaybsato oo go'aan keligii taliye wax soconaya ma ahan keligaa inaad go'aan iska qaadato walaal kelinimada ayay ku wanaagsan tahay kelinimada ayaad xataa dad la tashataa oo aad markaasi tiraahdaa sidee arrintaasi aan ka yeelaa waxaan rajaynayaa bulshada nagu xiran in ay gabadha walaasheen ah ay qalbadda u qaboojiyaan commentigoodana ay noogu reebaan meesha wixii tala ah ee gabadha walaasheen ah ay siinayaan asxaabay waa sahar oo idin leh ha ilaawanina inaad videoga like-ta siisaan sheerna noo dhahdaan intaan videogan mid lamida ku kulmeynana waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu I love you all bye bye من عيري ولقي عبك مفقادي عاوي ودرنتي حقي بان عسكدا